الحمد لله وكفى والصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله أيها المسلمون، الله تبارك وتعالى بني آدم كوحو قليي امتحان درسي شهوات فربضا، شهوة حولها، شهوة عرورتا، شهوة قلمدا، شهوة مقعة، شهوات فربضا. لكن شهوات كبني آدم كإلهي قليي كوا ugu khatarsan waxa kamid ah hadayna ugu khatarsanay shahwada milkiga iyo madaxnimada iyo kursi raadiska iyo boqortooyada. Iblis markuu aabaheen aadam fitnayn rabay, waswaasin rabay si uu jannada uga soo saaro, halka irid ee uu fahmay inuu ka geli karo waa laba iridood. iridda koobaadi waxa weeye waa milki jacayl, iridda labaadna waxa weeye waaritaan iyo jiritaan jacayl. saas daraaddeed markuu sirahayay wuxuu ku yidhi: yaa aadamow, hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa. ma ku tusaa geed haddaad cunto aad waari oodan dhimanaynin, boqortooyo iyo kursina aad heliyood ku waari. ibliis wuxuu fahmay aadamaha meelaha laga galayo iridaha ugu muhiimsani inay tahay kursiga iyo boqortooyada. meeshaasuna aabaheen aadam calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam ka soo galay oo uu dantiisii ka gaadhay oo jannadii laga soo saaray oo dhulka layna keenay oo rafaad iyo aafada ina haysataay ilaahay inoo qoray. nabigeennu sala allahu calayhi waalihi wasalam wuxuu inoo sheegay in manaasibta iyo kuraasta iyo madaxnimada aad ku dadaali doontaan. sataxrisuuna cala alimaara, madaxnimada waad ku dadaali doontaan, dadaal adag baad u geli doontaan adduunka intaad joogtaan. maalinta qiyaamadana waxay noqon doontaa qoomamo iyo nidaamo iyo farta inaad dhexda ka qaninto tiraado allow maxaa ii geeyey. macaanaa markay ku nuujinaysood naaskeeda jaqayso, magacii iyo jaahii iyo maalkii iyo amartaaglayntii iyo rooggii casaa iyo sacabintii, fa nicmati almurdica, naaskeedii baad jaqaysaa. wabi'sat alfaatima buu nabi sal alla alay wasalam, markay ku goyso naaska kaa goyso dhib iyo aafa markaasay ku haysataa. inay ku goynaysana shaki malo ahoo weligeed naaskeeda nuugi maysid oo ku dhaganaan maysid. maalin kaste naaska ay kaa jartaa laguu joogaa. madaxnimadu waa midda uu ninku ilmihiisa u dilo. imisaa nin wiilkiisa u dilay kursigii buu ku qabsaday. imisaa ilmo waalidkii u dilay kursi dartii. imisaa nin xaaskiisa u dilay kursi dartii. imisaa xaas ninkeeda u dishay kursi dartii. dadka kuwaad ugu jeceshahay ood cuntada iyaga ku hormarini, ood magaca la jeceshahay, oo aad wax walba u huri lahayd, markay noqoto inay kursi kugu qabsadaan waad khaarijini, uma quudhid. kursigu waa shahwada ugu halisan bini aadamka shahawaadkiisa. sidaas daraaddeed markay timaado ruuxa muslimka waxaa la doonayaa inuu taxadarkiisa qabo. war meeshani waa meeshii lagu halaagsamay. taariikhda markaad dib u akhrido oo sijillaadka taariikhda aad soo rogto, taariikh gaal iyo taariikh muslimba, caalamka wixii fitno soo maray intooda ugu badan waxaa sabab u ahaa kursi iyo raadintiisa. jagadaa iyo madaxnimadaasi mid ku fadhiya iyo mid ka riixanaya oo raadinaya baa adduunka soo rogay taariikhda akhriya. ilaa maantana adduunka waxa rogaya taas waay.
inta markaan ogaano مثال أي نسوق قادرنا قواعد مثال كعادية تسالياش ما أنت وافر بديهن أتونكينا وإسفر مي وحقر صون متشرو عام يقول وارجع سنة يا وآخرنا يا علماءنا وركض يقويهن كإسكاب الداع أدون كمان أنت وحقر صوني متشرو كي هو وحكلا قرصونايا ما لكن هذين تسالا سوق قادرنا صوماليا وسوق قادرنا ودن كاس ما أنت حالك يساوي له لقيبيي أو قيبسن لبربريي أو بربرسن دتك كنا لي أنت ضبضا فقرك خدكي سأي كهوسيان لليردي سي أي بدها كبابايس فرجلين شيء للي عيا أو عيد والبدوني سإني دنتي سكجاردو مجتمعي سيئوسن إسهيسنين دلك ساء يالا دبكا سيهيستو أيام ما أنت كوح يري كهر دميسا هالكرسي واحد سويدي سان دلك محا هالكا دقاي وحا هالكا دقاي نمن كرسي الرادسة وكدبنا مقع قبيل هو ضيغ استعمالي يمد كرسي كفر ديو أقوري وايي إيه الشعب أن وعي لهين أول استعمالي صدح ذا سايسوغو درمدي دالكانو أو بربوريي صدح دي بربوري سيبا ما أنت صدن سنو كدب ماشي لقب اللوبي با ديب لوغو النقضي ريبن إسرائيل با إلهي وحوكو شيغي أفرتن سنو إنو إلهي كو امتحاني تيه يجهورير ماشي سواحدي كجوران بي قلبتي كسر نقدان سي وريجي سنيا ماشي بينو كسر نقدان لقد واللقدي دمعوا كرسي وحل استعمالي وقبيالدي لقد واللقدي حساسي أهيد صومالي لقد تابن شري ما لقى الرجع شرا فرح لقى الرجع وحكلوا دن مدي رسو لكن مركل اللي ده هذا قبل كنا reer keenna deegaan keenna qabiil keenna jifadeenna taasaa rugaha ku rogta furaha ku rogo furuhu waa kaa furuhu waa furihii hadalku waa hadalkii raggu waa kuwii kuraasta raadinayay meeshii baan maanta joognaa shacabka wacyi la-aantiisiina waa dheerta iyaduna waa sideedii waxaan jeclahay 3 farrimood diintu waa naseexo صدح فريمود إن أدر صدح جهة وهوشاسي خصيصو جهة وقولة كراستا كفر لدا جهانا وقولة دونيس إنك كعسدان جهانا وشعب كمسكين كمصالح دي سلوك عياره قولة كرسي كفر لدا وحن ليه هدي كون سنة بل كمان سنة اللي قدايو nolosha lagu daayo kursigaana lagu daayo faraha lagaaga qaado waxa xaqiiqa inay imaan doonto maalin aad ka tagi doonto ama isagu ka tagi doono maalin kaana mas'uuliyadiisa iyo tabiicaadkiisa ilaahay hortiisa ay ku taala way ka horeysaa nin xilkas ah oo mas'uuliyad iyo culayskeeda dareemaya maanta kuma dhagdhago kursi Soomaaliyeed ya maanta cidiyaha kuma dagaalamo si uu kursi ugu fadhiyo ama u fuulo laakiin xilkasni baa jirta xil baan la garanaynin sidiisaba wuxuu yahay marka waxaad ogaataa kursi ma baaqi ahaado nololina ma baaqi ahaato fariinta labaadan doonaya inaan u diro wuxuu yahay waxay tahay bini aadamku hadduu quraanka ilaahay soo dejiyay iyo sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam uusan ka warhaynin waxa fiican inuu kuwaana qaato dhacdooyinka adduunka ka dhacaya ee ishiisu qabanaysa uu akhrinayo maanta wax way 20 jir ilaahay uma xil qarinin حوادث أدونك كدعيا وآيات إلهي أو تاجوي وحلقوا قاتوا
war aaway raggii kuraasta isku dhajiyey xaggay ku dambeeyeen ee cuquud min as-siniin ka talinaya caalamka meelo ka mida zaynul caabidiinkii tuunus aaway shaynul caabidiin dheh aaway butufliiqa jazaa'ir aaway mubaarakii masar aaway cali cabdallah saalax yeman aaway qadaafigii 40 sano ka badan biliibiya ka talinaya aaway war aaway madaxdii adduunka waa tageen maanta haddaan heli lahayn wax inooga soo warramo waxa qabriga ku haysta iyo ilaahay hortiisa waxay la tegi lahaayeen wax badan baa laynoo sheegay laakiin lagu waana qaadan maayo ninka kursiga ku dheggan waxaan leeyahay kuwaana qaado qayrka iyo dhacdooyinkaasi agagaarkaaga ka dhacaya in badan aad ogsoon tahay fariinta saddexaadii waxay tahay sabab ha u noqonin kursi aad isku dhajinayso sabab ha u noqonin hal ruux oo muslima dhiiggiisa inuu daato waxaanan kuu xaqiijinayaa haddaad sabab u noqoto hal ruux oo muslima inay la xagto iska dhaaf in la dile in la xagto dhibaata sababtaada ku gaadho haddii ay dhacdo ilaahay hortiisa maalinkaad soo istaagto adoo keliga oo qaawan adaa mas-uuliyaddeeda qaadi doona ku talagal tanaasul kursiga lamaadan dhalanin kulamana dhalanin ummadda masaalixdeeda iyo danaheedana wax badan baa looga tagaa danahaaga khaaskaa baa looga tanaasulaa tanaasulku waa khayr iyo maslaxo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh kamaa fi saxiixi albukhaari wagayri maalin isagoo khudbaynaya oo ummadda u khudbaynaya wiilkiisii xasan ayaa kursiga ayaa la soo fuulay mimbarka nabigu waa jalleecay sala allahu calayhi waaalihi wasalam markaasuu wuxuu yidhi nabigu sal alla alay wasalam wiilkaygan waa sayid buu nabigu yidhi sal alla alay wasalam ilaahayna wuxuu ku islaaxin doonaa laba kooxood oo muslimiinoo waaweyn oo dagaalamaya ayuu ilaahay sabab uga dhigi doonaa in maslaxa dhexdooda dhacdo xasan ibni cali bni abi aalib sanadkii 4tanaad ee taariikhda hijriga ayuu uga tanaasulay wixii laysku hayay mucaawiyat bn abi sufyaan radia allahu tacaala canhuma sanadkaana waa sanadka lagu magacaabay sanadkii midnimada muslimiinta caamuljamaaca xadiidkiiyo bishaaradii nebigaa xaqiiqowday wiilkaygu waa sayid ilaahayna ummadda muslimkaabuu ku islaaxin doonaa sayidnimada qaado oo sharafta qaado oo karaamada qaado oo nin kursiga xoog lagaga qaatay sharaf male nin la eriyey sharaf male nin ummaddiisa u tanaasulay baa sharaf iyo qiimo ku nool adduun iyo aakharaba tanaasuloo maslaxada u tanaasul fariinta labaadii waxaan doonayaa inaan u diro kooxdan isku magacowday murashaxiinta madaxnimada ee doonaya inay kursiga ka riixdaan ninkaas ayaguna ku fadhiistaan fariinta koowaad aan u diraya waxay tahay waad ogtihiina waxaan idin xusuusinayaa kursigan iyo boqortooyada ilaahay baa gacanta ku haya cidduu doonuuna siiyaa qul illaahumma maalika almulki tu'ti lmulka man tashaau watanzicu almulka miman tashaa dagaal iyo dadaal loo galayna laasim maaha in kursigaa lagu gaadho midaan dadaalin buu ilaahay siiyaa mid dadaalay oo dagaalamayna ilaahay waa ka qadiyaa ilaahay baa hayoo gacantiisa ku jiroo bixiyee bal horta rumeeya waa midda labaadee kursigu waa mid laba ruuxna ma wada qaado 10na ma qaado 7na ma qaado hal buu qaadaa kursigaa halka qaada waa midkii soomaaliya intay isku laysay la qaybiyey oo gaaladu intay u sameeyeen landis fulaan lagu qanciyey adiguna madaxweynaa tahay kursigii ayaa markii
وكوة في اللان ويا وحي نقطي إن طبعاً كرسي أو كلا الله صاره أو لوقا عيو اللي هذا اللان ديس كان مدحوين فلان كان مدحوين فلان كان مدحوين فلان والكرسي وامد إلهين النمبو أقري هذه حقيقة بها كما دبعاوة مدى الصدح هذا اللي وحي تهي إن بدن أو كرسي رادي سو كوهن قودي باتشرته دنبنا كالراعي إمي سآوي دقال أوغياشي آوي دات رجي دال كان سو بربوريي كرسي الرادين آوي انت كرسي كغفري ستي ويريهن كل قودنا وحي قاتين وحي دالك كرعي إلهي بين الله ارتقيان ميدان كوانا قادنين ميدان وحكو قادنين waxaan leeyahay luqadda qabyaalada daaya hadalka xanafta le daaya fitnada kicinteeda ka fogaada si mas'uuliyadi ku jirta u dhaqma yaa dalka u tura dadkan u tura duruufta ummadda haysata u tura ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa qabyaaladan lagu celcelinayo ee la kicinayo ee lagu hadlayo ee lagu dhaaranayo warsootii halkaa ina dhigtay ma aha warsootii aan ku hungownay ma aha warsootaan ku jabnay ma aha war goormay shaati kale inoo soo xidhatay 30 sano kadib goormay shaati kale soo xidhatay soo iyadii uun ma aha waa iyadii laakiin wajiyada isbedelay shalay waxay ahayd generaal fulaan buu ahaa shalay maantana waa siyaasi fulaan laakiin wax kaloo isbedelay ma jiro waxaan leeyahay fitnaha abaabulina aafana dalka iyo dadka sabab ha ugu noqonina sharna horseed ha ugu noqonina fitna lama dhudhumiyo sharna la iskuma dhereriyo waa laga fogaadaa waana laga taxadaraa كهرتك بوليه كدبتك مله آفدو هذي هرتي هلا عدنا نول بيسا ميسا دروس تدنا وانو هينا وحلايا هي ونوجدن بيسينا يا كلمات كان قلدا كلها ومدن آدي سكين إنسان الذين مظاهرات سمية أو صاحبها يبنانا آدي سكين إنسان الذين دستور كان نو أقل وروحان دين الله مشوا مقدشوا وروحان إذن الله مقدشة إذن كان نغيا قانا وربشيبا إنتا سو قرحبا كرعا ورمالين كيبا إنتا سالو قد لا ورمقالة هبا رحلة ذي الله كفافصا وركو حدد كاللايات تفكا أما الدين هالشيطان أما كوك لها هادم وروي فضود هيدتك إسو إيمانا يدحضو ذا إن بلايا لغا قرحيو ورمدبا كدحلو من كرو إسقرحين كريا ورمدبا كدحلو من كرو دادكن كذا تحبدين كرو اللين كريا war ayagaydan kontrooli karaynin oo haday dhaqaaqaan xoolahana burburini hantidana burburini oo boob iyo dhacba iimaanaya hanti la burburiya iimaanaysa mana kontrooli kartaan dawladina ma kontrooli karto been waay ya dawladaha waaweyn ba kontrooli kari waay mudaharaadku markay dhaqaaqaan dadkan waxa ku jira dad xilma kas ah dad waxa ku jira wax booba isaabaad ijraan ba ku jira ya war Mareykan ba kontrooli waay oo Faransiis ba kontrooli waay oo Ingiriis ba kontrooli waay oo dawladii xoog badnaa ba kontrooli waay ummadu haday dhaqaaqdo lama kontrooli karo waxa dhici karana ma saadaalin kartaan isweydiiya mas'uuliyadda qaadi doona isweydiiya ya mas'uuliyadda qaadi doona markaad ummadan ku khamaaraysaan oo kaliya ujeedadiinu ay tahay inaad ku abuurtaan كلية بريشر أتكو أبورتان قلدا إذن كسو هرشيدا ووحن ليداهدو محوء هاي عالمك أبورتان بريشر كو أبورتان وجديد إنه إنت هاي واحد دعي كرا يديق دادن كرا يعافد إيمان كرتا يهانتنا بربوري كرتنا هذا واحد بدن كو أكسون تهين محادو خماريسان محاد ليقى أمده وقو خماريسان محاد مصالح ده وقو خماريسان محاد هانتي ده وقو خماريسان
bimujarrad inaad kursi gaadho aan la hubin inaad gaadhi doonto maxaad ugu khamaaraysaa dastuurka qaba waa xaq dastuuri ah war dastuurkan qabayo waa kee ma kii gaaladu idin dejisay Soomaa kii idin kala qaybiyay Soomaa kii landhiska idinka dhigay Soomaa dastuurkan aad sheegaysaan haddii uu kitaabka Ilaahay iyo sunnadii nabiga ka hor yimaado waa xaq dastuuri ah dastuurkiinba aqligiina iyo wacyigiina hadduu heer ka joogo maanta aad garan la'dihiin war maxaa iimaan kara maanta ummadda meesha la isugu keenayo maxaa ka dhalan kara qiyaas la'dihiin mas'aladu siyaasadeed ma mas'alo siyaasadeed ma mas'alo dawlad loogu hiilinaya ma mas'aladani wax weey waa muslimiin lagu khamaarayo dhiig yar oo ruux muslima ka daata ayaa ka muhiimsan dhiig yar dhimasho ma dhiig muslim oo daata oo dhaawac ku daata ayaa bil wallahi thumma wallahi ka muhiimsan kursiga iyo waxay u ordayaan nabi maxamed baana sidaa yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi war ilaahay ka cabsada war ilaahay ka baqa war aakhiradiina ilaaliya war ummadana ku khamaarina war dalkan dhibka ka daaya war waxan kada tafarsameeya war isu tanaazula war tartiib u wada hadla war wixii maslaxa isla xaqiijiya war damiciina dib u liqa masaalixdi damiciina khaas ka ah maslaxada dalka iyo dadka ka hormariya ilaahayna uga baqa tabaaraka wa tacaala fariintayda ugu dambaysa waxaan doonayaa inaan idhaahdo shacabkan miskiinka ah ee lagu ciyaarayo ee maalinna magaca qabyaaladeed loo soo huwanayo maalinna magacyo kaleeto loo soo huwanayo rag damac iyo kuraasi iyo shahwo kursi haysana ay maalinba dab ku daadinayaan shacabkan miskiinka waxaan leeyahay shalayna wixii meesha ina dhigay waa wacyi xumadeenna nimankii jabaadaha hogaaminayay gaaladu ay soo taageertay dalka burburiyay waxay inagu kacsadeen qabyaalad iyo reehebel markaan gubanayna inaga dabkii ku gubanay maantana waa sidii way cidda guban doonta oo dabka ku guban doonta waa inaga waa shacabka waa hooyada waa caruurta waa ardayga wax baranaya waa curyaanka war inaga gubanayna waa dalkeeni waa deegaankeeni inagii baa gubanayno dab ku daadanayna maslaxadeena inaan garanno waayo inay isaga keen khaldamaan ma aha cid maslaxadeena ficlan ka shaqaynaysoon dan inugu wadanin iyo nin dantiisa wado kursi doonayo awrka inugu kacsanaya inaan kala fahmi weyno waa wacyi xumo in layna yidhaahdo soo baxa oo khatarta u badheero sidii dab laynugu dabaalalay oo kaleetana waa wacyi xumo inaan gacmaheenna ku burburina amnigii dalka iyo deganaanshihiisa iyo xasiloonidiisuna waa wacyi xumo aqoon darrada iyo wacyi xumadana waa wax laynooga faa'iidaystay waxaan dhihi lahaa danteena aynu garanno nabigeenu wuxuu ku taliyay salawaatu rabbi wa salaamu calayhi fitanka ka fogaada meesha ay ka dhacayaanna ka durka ha isku dheerarinina hana dhudhuminina ciddii shanta la gasha tobankay la geli maxaad u dhimani maxaad dabka u geli maxaad lagu dili maxaad dhiigaaga u daadin maxaad isu rafaadin maxaad heli qoladan kursiga doonaysay shalay bay hayeen qaar ka mid ah maxaa kuu soo kordhay bal isweydii kan hadda ku fadhiya markuu imaanayay sacabkaad u tunteen oo waxaad tidhaahdeen farmaajo iigee maantana waxa weeye halkaasay maraysaa war midina malab idin daaqsiin maayo midina dhulka cagaar idinka dhigi maayo ninna shidaal idiin soo saari maayo ninna duruufihiinnan ka jawaabi maayo iyo aafada idin haysata ka jawaabi maayo aan idiin sheegay danteenna aynu garanno fitankana aan ka fogaanno yaan layna isticmaalin ayagana wixii maslaxa aan kula talin oon gacanta qabanno gacanta inaan qabanno warkada dalka annagaa leh annaga lexjecla naga haysa haddayna adiga kaa haynin hadday ogaan lahaayeen shacab is-hortaaga hadduu jiro inuu jiro hadday ogaan lahaayeen shaki kuma jiro waxyaalaha qaarkood way ka gaabsan lahaayeen laakiin waa layna tijaabiyey waana layna arkay
marka waxaan leeyahay wacyi aan yeelanno masaalixdeenna aynu garanno danaheenna aan ilaashanno nabigeenna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sheegay markay fitanku kacaan oo aafaadku sidanoo kale u istaagaan danahaaga khaaska aad danta caamkaana isaga tag nebi maxamed baa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh danahaaga khaaska aad dukaankaaga aad ganacsigaaga aad hawlahaaga aad mudaaharaad iyo kursi iyo orod iyo qajajac iyo isaga tag dantaada ma ahe ka danayso yaa leh macnaha nebi maxamed baa leh salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa haddaynu yeelaynaynu qaadanayna isagaana dantu inoogu jirta meesha maanta aynu joognaayey waa meel inaynu ka soo kabanno ka soo waaqsanno ay qaadan doonto cuquud qaadan doonto tobanaan salay qaadan doontaan maxaa yeelay shalayna qabyaalad baa laynoo isticmaalay maantana dowlad goboleedyaa laynoo isticmaalayaa dowlad goboleedyadan yaa dhisay sistamkan yaa soo dejiyey gaalaa soo dejisay beesha caalamka haddaad maqasho beesha caalamka waa dana gaalo waaye aad baana uga xumahay mutacalimiintii soomaalidu in warkooda ku bato beesha caalamka beesha caalamka beesha caalamka noo soo gurmato beesha caalamka war beesha caalamku yaa waay beesha caalamkay kuu soo gurmanaysa yaa waay caqli xumadaada iyo waxyi xumadaada intaad walaalkaa isfahmi weydeen walaalkaa baa waxaad leedahay beesha caalamka ay beesha caalamka beesha caalamku soota adduunka burburisay maaha waa adduunka halkaa dhigtay maaha war waxyigeenna aynu garanno soota halkaa ina dhigtay maaha qabyaaladii ree hebel iyo ree hebel ahayd unbaa maanta waxaa loo bixiyey landis iyo landis xaggeed ku aragtay dowlad goboleed dowladdii dhexe ka awood badan xaggeed ku aragtay adduunka xaggee ka jirtaa oo dowladdii dhexe amarka ka soo baxay maya dhihi karta oo diidi karaysa xaggeed ku aragtay mihaal qaata billaahi calaykum waa idinku dheereeyey kenyaynu hadda joognaa countiga governaha dowlad goboleedka madaxda ka ah dowladda dhexe amar hadday bixiso isagoo jeebaysan baa lasoo qabanaa ma tahay mise ma aha etoobiya waatan kililo weeye kililka ninka madaxweynaha ka ah dowladda dhexe hadduu amar ka soo baxo isagoo jeebaysan baa lasoo qabanaa wayna dhacday xaggee buu ka yimid systemkan markaa ummaddii inta lagu qaybiyey nin gobol joogaayo uu dhihi karo maya oo masiirka ummadda siduu doona ka yeeli karayo systemkaasi yaa kuu dejiyey yaa kuu keenay yaa ku geliyey ma isweydiise ma dantaadaa ma isweydiise waa markaan leenahay meesha layna gaydhsiiyey godka iyo booraantana lagu riday inaan ka soo baxnaayey waxay qaadan doontaa cuquud aad u dheer iyo juhdi iyo dadaal iyo wacyi ummad wax fahansan oo dalkeeda iyo deegaankeeda ka danqanaysa oo danaynaysa ayay u baahan tahay xaaladda noocaas oo kalea marka waxay u baahan tahay muhimna ah shacabka soomaaliyeed oo meelaad joogtaan badanihiinna garta wacyi iyo fahamna yeesha masaalixdiinnana u istaaga ma aha rag iyo hebel ma laakiin masaalixdiina dalkiina iyo deegaankiina iyo diintiina iyo dadkiina sallu wa sallimu ala khatam al-anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'an as-sahabati wat tabi'in وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك